musharaxa madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdirasaaq iyo wafdi uu hogaaminaya ayaa ka degay dalka Kuwait waxaana airportka Kuwait ku soo dhaweeyay jaaliyada Soomaalida ee ku dhaqan dalkaasi. Maxamed Cabdirasaaq iyo wafdigiisa markay garoonka ka soo degeen ayaa jaaliyadu waxay kaga hortageen isla garoonka gudihiisa waxaana u soo galbiyeen magaalada hoygii uu ka degi lahaa. inta kadibna Maxamed Cabdirasaaq waxa ay jaaliyadu u qabanqaabiyeen xaflad ay ku taageersan yihiin kuna soo dhaweynayaan musharaxa Maxamed Cabdirasaaq. inta kadibna Maxamed Cabdirasaaq markii uu xafladda yimaaday ayaa sawaxanka iyo shacabka ay jaaliyadu ku soo dhaweynayeen hoolkii isla qabsaday. Maxamed Cabdirasaaq markii uu khudbadiisa bilaabayna dadku ayaa aad ugu riyaaqay fikradaha uu Maxamed Cabdirasaaq xabaarsan yahay isla markaasna uu rabo inuu ku hogaamiyo wadankiisa hooyo ee Soomaaliya haddii uu madaxweynenimada ku guuleysto 2016 doorashada dhacayso haddii ay baraale ka noqdo. Maxamed Cabdirasaaq ayaa waxa uu yahay wiil dhalinyaro ah firfircoon isla markaasna doonaya inuu wax ka bedelo 25 sano ee wadanka burburka iyo dhibaatada ka jiray isla markaasna dowladihii soo maray kuwii ku meel gaarka ahaa iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya oo iyagu noqdayba kuwa ku hangoobay inay hamigii iyo dowladnimadii Soomaaliya dib u soo celiyaan. haddaba la soco musharaxa Maxamed Cabdirasaaq oo isagu safarkiisii baryahanba ku kala bixinaya dowladaha iyo wadamada qaaradaha adduunka. Somali